السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن رجعنا دمانتنا في عندين كسر لواذا كليب كان الربي إن وعي قلين أما محنقول لها ديسكشن يرأيني كلاسا ميو حالة وكسو غيها ودنكا إن دنكا كورونا فيروس إن سامود أكسون هاي كورونا فيروس وحكا باللودي الدونك بود أحان باللوغي دمتكي سنتكي لابدكم إسهال إطبانكا ديسمبر نوفمبر dhexdoodii oo China ka dilaacay adduunka dhan panic attack u galay oo taxadirkii waa la badiyay oo maxaan ku dhahaa ay sheegeen dadkii waxay gelin badan baa loo sameeyay oo waxa la dhahay safarka la yareeyo oo nadaafadda la badiyo guryaha la joogo ka shakhsi ahaan markaan arkay xaaladda adduunka inta ka sugan tahay waxaan isku dayay inaan ka qayb qaato wacyi gelinta caalamka ka socdo dhanka Soomaalida inaan wacyi gelin ka sameeyo aniga YouTube-kayga waxaan soo dhigay video aan uga hadlayo coronavirus ka calaamadihiisa iyo qaabka uu ku faafo in dadku dili karo waxyaabahaas si basic ah dawladda Soomaaliya way ka hadashay in dadka ay taxadiraan ay nadaafadda badiyaan ay dugsiyada iyo iskuulaadka la fasaxo meelaha la iskugu imaanayo lagu shaaxeeyo la yareeyo dadka qaar way u hoggaansameen badankooda ma u hoggaansamin oo waxaan ku adkaysanay xanuunkan wuxuu ku dhacayaa gaalada xanuunkan gaal iyo muslim ma kala yaqaano saan wada ogsoonahay virus waa virus qofka bini'aadanka oo markaas u dhow ama oo qaban karo ama ku dhici karo ku dhacaya gaal ha ahaado muslim ha ahaado meeshaan caqiido ma ka hadleeno waxaan ka hadleynaa caafimaad shalay oo jimcadii ahayd waxaa dhacday in mas'uuliyiinta dawladda qayb ka mid ah inay soo amraan askar masaajidada dadka looga wacyigeliyo oo isku imaatanka la yareeyo wali waan garan la'nahay masaajidada qaar fooda ka dhacday oo dadkii ay u bedeleen xaalad diini iyo dad diinta ka soo horjeedo oo waxa waaye takbiir badan lagu sameeyay askartii oo maxaan ku dhahaa foodadii xaalad nooc kale ay gali gaartay marka waxaan intaan u soo tabinayaa waxay tahay dadkii Soomaalida wali wacyigooda uma jeedaan iyagoo dhaqaatiir badan laga helay xanuunkii oo ka shaqeynayay bulshada dhexdeedii dad ka mid ah oo dadka la nool bulshada markaas ku dhaqmayay laga helay iyadoo laga helay uma jeedaan wali oo bulshada waxay leeyihiin anaga ma nagu dhacayo dad qaar wali waxay aaminsan yihiin inuu coronavirus uu yahay maxaan ku dhahaa sheeg kaduudiyow waxay taagan yihiin anaga kaduudiyo horuna u dhici jiray waxna ma naga taraayo gaaladu had ku cusub yahay no kaduudiyowga waa xanuun coronavirus kan waa xanuun kale marka isku mid ma ahan xaaladda waddanka aad bay u culusaanaysaa shaqaalaha caafimaadka baa dad badan laga soo helay maxaan ku dhahaa bulshadii dhexdeedii baa laga soo helay kayskii uu ziyaadaya isbitaaladii waxay galeen xaalad emergency oo ay dhahaan anaga ma qabanin wixii OPD ah ama bukaan socod ah marka taxadirkeena inuu yar yahay ayaan weli aan u malaynayaa waxaa arkaysaa dadkii masaajidadii iskugu imaanaya weli oo maxaan ku dhahaa ay sheeg markii masaajidka lagu soo tukada xataa kadib banaanka lagu kulmaayo sheekadii socoto viruskii wuu sii faafaya aan u soo noqdo dadka shaqaalaha caafimaadka naftirkiina taxadirkan aad u yar yahay taxadirka la badiyo oo maxaan ku dhahaa ay sheeg markii laga soo bilaabo farmasistiyaasha dadka caafimaadka isbitaalada joogo maasaskiina inuu xirnaado sax intiina badan uma baran yani maas 24/7 inuu ku shaqeeyo qofkan laakiin waa waajib xilligan oo kale inay nafsadaada bartaa oo maxaan ku dhahaa sheeg wacyigelinta markaas dhagahaaga ay ku jirtaa naftirkaaga ka health worker ahaan ilaahay waxaan ka rajaynayaa xanuunkan inuu naga ciribtiro oo inta la xanuunsanaysana uu ka caafiyo sida ugu dhaqsiyaha badan inta oo maxaan ku dhahaa dhimatayna ilaahay u naxariisto anagan taxadirkan aan badino wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu الثمن ونسعى بالتطوع ما لنا في سعينا زمن فهذه مهنتي وأنا عليها اليوم مؤتمن فهذه مهنتي وأنا عليها